markii ugu horeysay ciyaartoyda xulka qaran ayaa waxa ay isku diyaarinayaan kulan saaxiibtinimo ay la ciyaari doonaan dalka Burundi. kulankaas oo ay u anba bixi doonaan caasimada dalka Burundi ee Bujumbura. ciyaartan saaxiibtinimo ee xulka qaranka isugu diyaarinayaan ayaa waxay ka tirsan tahay isreebka koobka qaaradda qaramada Afrika ee 2019 oo aan la ciyaari doono xulka qaranka wadanka Cameroon. ciyaartoyda ayaa tababarkii ugu dambeeyay isugu diyaarinayaan kulanka ku jira tababaraha xulka qaranka ee dalka Mauritania u dhashay Musa Mura ayaana u joogay tababarkaasi. gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Sulaymaan Xasan Waaberi ayaa sheegay inay tani tahay markii ugu horeysay xulka qaranka kubadda cagta ay dalka dibadiisa ugu anbabaxaan ciyaar saaxiibtinimo, waxaana ay ka mid tahay kor u kaca isboortiga lagu jiro dalka sidii kor loogu qaadi lahaa. tababaraha xulka qaranka kubadda cagta Musa Mura ayaa sheegay inay tani si wanaagsan ay isugu diyaarinayeen gobolka Cali Sabiix ayaa waxa uu sheegay tababaro inay ku sameeyeen muddo 10 cisho tababar gobolka Cali Sabiix. waxa uu yiri magaalo qabo ay ahayd tababarkana si wanaagsan ayuu nagu dhacay intii aan halkaasi joognay. waxaan u baxaynaa dalka Burundi waxaana aan halka ku ciyaari doonaa 2 kulan oo saaxiibtinimo ah. midka koowaad ayaa waxa la ciyaari doonaa xulka qaranka wadanka Burundi ee seniorka, halka midka labaadna aan la ciyaari doonaa xulka qaranka wadanka gudihiisa 13 bishan.